بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا جوب سكيلز waxaan rabnaa halka inaan ku bilowno free course waa koorso free ah ama bilaash ah oo lagu baran doono kombiyuutarka koorsadan waa koorso bilow ah casharaduna waa bilow aasaasi ah isla markaana aan ka bilaabi doono meesha ugu horeyso ee kombiyuutar qof looga bilaabo sida aan u diyaarino waxay tahay si ay fahmi karto qof walba oo daneynaya inuu fahmo ama wax ka barto maadada kombiyuutarka inagoo qaybta ugu hooseysa kombiyuutarka fahankiisa ka bilaabi doono waxaan ugu talagalnay in dhalinyarada doonaysa barashada kombiyuutarka ay ka faa'iideystaan koorskan guud ahaan waa bilaash qofka marka uu koorsada dhameeyo imtixaan ayaa ka qaadi doonaa haddii imtixaankaas uu ku guuleystana waxaa siin doonaa shahaado ay bixinayso xarunta Job Skills Training Center sidoo kaleeto koorsadan ayaa sii gudagali doonaa fadlan haddii aad ku cusub tahay janalka subscribe dheh oo like noo saar muuqaalka lana wadaag asxaabtaada waayahay waxaa sii gudagali doonaa casharkeena koowaad ee barashada kombiyuutarka casharkeena koowaad waxyaabaha aan ku qaadan doono hadduu ala yidhaahdo waxaa ka mid ah what is computer waa maxay kombiyuutar horta sidiisaba kombiyuutar muxuu yahay ayaa ku baran doonaa sidoo kale waxyaabaha kale aan ku baran doono casharkeena koowaad waxaa ka mid ah types waa qaybaha of computers ee kombiyuutarada horta noocyo ee u qaybsamaan imise nooc ayay u qaybsamaan kombiyuutarka ayaa ku baran doonaa sidoo kale waxaa ku baran doonaa understanding inaan fahanno what computer waxa kombiyuutarku consist of uu ka kooban yahay in aan fahanno horta guud ahaan waxa kombiyuutaradu ay ka kooban yihiin saddexdan qodob ayaa casharkeena koowaad ku falanqeyn doonaa hadduu alla yidhaahdo insha allah waa maxay kombiyuutar kombiyuutar horta maxaa la yidhaahdaa kombiyuutar horta waxaa u naqaanaa laba nooc oo kombiyuutar ayaa jirto kombiyuutarkan waxaa loo yaqaanaa desktop computer kombiyuutarkan waxaa loo yaqaanaa desktop computer kombiyuutarkan waxaa loo yaqaanaa laptop computer iyo desktop computer waxaan rajeynayaa labadoodaba inaa hore u aragtay balse hadda kadib aad kala fahmi doonto kombiyuutarka noocan ah waxaa loo yaqaanaa dhahnay desktop computer waa desktop computer kombiyuutarka noocan ahna waxaa loo yaqaanaa laptop computer haddaba kombiyuutar muxuu yahay sidiisaba kombiyuutar muxuu yahay kombiyuutar waxaan leenahay waa machine waa qalab ama mashiin ama makiinad waxaa doontaba dheh daadkaasoo kan store aad ku kaydsan karto an process ugana shaqaysiin karto information xog waa qalab casri ah oo aad uga shaqaysiin karto isla markaana ku kaydsan karto xog ayaa waxaa loo yaqaanaa kombiyuutar waxaan rajeynayaa inaan isla fahnay kombiyuutar waa aalad casri ah oo aad ku kaydsan karto isla markaana uga shaqaysiin karto xog ama warbixin ayaa waxaa loo yaqaanaa kombiyuutar waayahay types of computers noocyada kombiyuutarada types of computers waxaa leenahay noocyada kombiyuutarada guud ahaan kombiyuutarada waxaa ku qeexi doonaa ama ku sheegi doonaa inay yihiin 4 nooc oo kombiyuutar ah ayaa jirto the 4 basic types of computers are under kombiyuutarada si guud markaan dhahno waxay u kala qaybsamaan 4 nooc oo kombiyuutar ah mid ayaa u dul istaagi doona hadduu ala yidhaahdo nooca koowaad ee kombiyuutarada waxaa loo yaqaanaa super computer waxaa loo yaqaanaa super computer nooca labaad ee kombiyuutarada waxaa loo yaqaanaa mainframe computer waa mainframe computer nooca saddexaad waxaa loo yaqaanaa mini computer nooca ugu dambeeya afraad aan qeexi doono wuxuu noqon doonaa kombiyuutarada loo yaqaano micro computer waa microcomputersna waa nooc ka mid a iyaguna kombiyuutarada saddexdan ilaa 4 nooc oo kombiyuutarada ayaa ku baran doonaa noocyada kala duwan ee kombiyuutarada waayahay nooca koowaad ee kombiyuutarada aan ku qaadan doono waxaa loo yaqaanaa sidaan hore usoo sheegnayba waxa la yidhaahdo super computer waa noocyadan kombiyuutarka sawirkiisa halkan ka muuqdo super computer waxaan leenahay waa kombiyuutarka ugu xawaaraha badan fastest computer waa kombiyuutarka ugu xawaaraha badan in the world caalamka that can process kaasoo ka shaqaysiin kara significant amount of data very quickly wuxuu ka shaqaysiin karaa
daato xoog badan ama fara badan si dhaqsa ayuu uga shaqaysiin karaa. Kombiyuutaradan waxaa isticmaalo dadka ama kambaniyada waaweyn ee tiknoolajiyadda ku shaqo leh, iyaga ayaana isticmaalkooda garanayo. balse annagu inta badan waxaa isticmaalnaa kombiyuutarada yaryar ee loo yaqaano mini computerska. waayahay nooca kale ee kombiyuutarka waxaa loo yaqaanaa mainframe computer. Mainframe computerna waxa uu ka yar yahay kombiyuutarkii hore aan soo qaadan ee ahaa supercomputer. Supercomputer ayuu ka yar yahay. Mainframe computer waxaa leenahay waa powerful computer awood badan oo xoog badan waaye. isagana waxaa loo isticmaalaa ama waxaa isticmaala large information processing jobs, shaqooyinka u baahan xogta faraha badan ee iyaguna shirkadaha tiknoolajiyadda iyo shirkadaha waaweyn ee isticmaala tiknoolajiyadda la xiriira ayaa iyaguna isticmaala. markan waa nooc ka mid a kombiyuutarada, waxaana loo yaqaanaa supercomputer, waana kombiyuutaradu aan dalka oolin, iyaguna ay isticmaalaan dadka macnaha ku shaqadeeda leh ama kambaniyada waaweyn ee ka shaqaysta tiknoolajiyadda. nooca saddexaad ee kombiyuutarka waxaa loo yaqaanaa mini computer. Mini computer waxaa loo yaqaanaa kombiyuutar ka yar. Mini computer waa kombiyuutarada yaryar, waxaana ka mid ah waxa la yiraahdo kombiyuutarada hadda anaga aan isticmaalno ee la yiraahdo laptopska ama waxa la yiraahdo kombiyuutarada aadka u yaryar ayaa waxaa loo yaqaanaa microcomputer. Microcomputer sidoo kale wuxuu u dhexeeyaa waxa la yiraahdo microcomputer iyo mainframe computer ayuu u dhexeeyaa. marka waxaan leenahay waa small computer aad u yar waaye ama yar that kaasoo intermediate u dhexeeya between mini computer and mainframe computer. Mini computer iyo mainframe computer ayuu u dhexeeyaa in size, cabirka marka laga fiiriyo, speedka marka laga fiiriyo, capacityga. Speedka waa xawaaraha waaye, capacityga waxaa waa wax uu qaadi karo, dadkan support iyo waxyaabaha kale uu taageeri karo uu ku shaqayn karo. marka laga fiiriyoba intaan ayuu markaasi ku shaqayn karaa kombiyuutarkani loo yaqaano mini computer. waxaa loo yaqaanaa dhahnay mini computer. kombiyuutarka ugu dambeeya aan ku qeexi doono noocyada kala duwan ee kombiyuutarada waxaa loo yaqaanaa waa microcomputer. isaguna waa nooc ka mid a kombiyuutarada, waxaana ka mid a kombiyuutarada loo yaqaano desktopka iyo laptopka. Desktopka iyo laptopka waxa ay ka mid yihiin kombiyuutarada loo yaqaano microcomputers. marka la yiraahdo microcomputer waa kombiyuutar aad u yaryar marka loo eego saddexda nooc ee kombiyuutarada kale aan hore u soo aragnay. sidoo kale waxaan leenahay microcomputer usually referred to laptops or desktops. Desktop kana loo yaqaanaa. Desktop waa kombiyuutarkan ayaa waxaa loo yaqaanaa desktop. Laptopna kombiyuutarkan ayaa loo yaqaanaa. marka desktop iyo laptop ayaa markaas waxaa ku qeexaynaa inay yihiin microcomputers. marka waxaan leenahay microcomputers waxaa ku qeexaynaa inay yihiin laptop iyo desktop. Desktop kombiyuutarada noocan ah ee systemka wata, muuskooda gooni u wata keyboardkooda gooni u wata, dhaladii gooni ee tahay waxaa loo yaqaanaa desktop. kombiyuutarada noocan ah ee iyaguna isku wada samaysan ee keyboardkooda halkan ugu dhegan yahay, muuskooda ugu dhegan yahay, systemkii iyo dhaladina hal meel ay wada yihiin, waxaa loo yaqaanaa laptop computers. iyaguna waxaa rajeynayaa inaan isla fahnay. intaas markaan kaga gudubno waxaa intaas ku soo baranay kombiyuutarku iyo waxyaabaha uu ka kooban yahay, kombiyuutarka iyo noocyadiisa kala duwan. halkaa waxaan ku qaadan doonaa kombiyuutarka iyo waxyaabaha uu ka kooban yahay inaan fahno. Understanding waa inaan fahno what computer consists of, waxa kombiyuutarka uu ka kooban yahay. kombiyuutarka marka uu samaysan yahay ama uu dhisan yahay guud ahaan wuxuu ka kooban yahay 3 unit oo waaweyn ama 3 qayb ayuu kombiyuutarku ka kooban yahay. qaybta koowaad computer consists of, kombiyuutarku wuxuu ka kooban yahay 3 main parties, 3 qayb oo waaweyn ayuu kombiyuutarku ka kooban yahay. qaybta koowaad waxaa loo yaqaanaa input unit. input unit waa qaybta kombiyuutarka wax laga gelsho. kombiyuutarka marka xog ama data raba in la geliyo, qaabka loo geliyo ama meesha laga geliyo waxaa loo yaqaanaa input unit.
waxaa kaloo jirta waxa la yidhahdo qaybta labaad oo computerka kooyaan waa output unit. qaybta computerka wax ka soo saarta ayaa waxaa loo yaqaanaa output unit. qaybta saddexaadna waxaa loo yaqaanaa system unit. system unitna waa qaybta computerka oo dhan ka shaqaysiisa. system la-aanna computer ma shaqey karo. computerada laptopyada systemka uu ku samaysan yahay, halka desktopkana uu halkaas u yaalo qalab yaroo maxaa la yidhahdaa sidaas u samaysan inuu halkaas u yaalo ayaa waxaa loo yaqaanaa system. waayahay intaas markaa kaga gudubno mid mid ayaa u dul istaagi doonaa saddexda unit aan soo sheegnay oo computerku ka koobnaa. qaybta koowaad haddii aan ka bilowno waxaa loo yaqaanaa input unit. input unit waxaa leenahay waa qaybaha computerka wax laga geliyo. qaybaha computerka marka aan rabno daatii wax inaan gelino halka laga geliyo ayaa waxaa loo yaqaanaa input unit. keyboardka ayaa ka mid ah qaybaha computerka wax laga geliyo. keyboardka maxaa laga geliyaa computerka wax la yaabaa laga geliyo waxaa ka mid ah qoraalada. marka aan rabno inaan qoraal computerka gelino waxaa qasab ah inaan heesano waxa la yidhaahdo keyboard. keyboard inaan heesano ayaa qasab ah marka aan rabno qoraal inaan gelino computerka. sidoo kale computerka marka aan rabno in aan sidoo kaleeto ka shaqaysiino muuska ama pointerkan waxaa la yidhaahdaa wuxuu noo tilmaamaa qoraalka meesha uu joogo ayuu isaguna noo tilmaamaa. isaguna wax muhiima ayuu inoo qabtaa oo ah waa tilmaame muhiim u ah waxa computerka la gelinayo hadday yihiin waxaa leenahay waa tilmaame muhiim u ah waxa computerka la gelinayo. waxa computerka la gelinayo ayuu muhiim u yahay, aad ayuuna u tilmaamaa. muus la-aantiisna computer ma shaqeyn karo. kan saddexaad waxaa loo yaqaanaa scanner. scannerkan waxaa computerka lagu geliyaa dukumentiyada. dukumenti marka aan rabno inaan computerkeena gelino ama masawir inaan gelino waxaa isticmaalayana waxaa la yidhaahdaa waxaa loo yaqaanaa waa documenti. markaan gelinayna inaan isticmaalno scan waxa la yidhaahdo scan kan ayaa waxaa loo yaqaanaa scan ama scanner hadba sidaa u taqaano. sidoo kale computerka waxyaabaha kaloo la geliyo waxaa ka mid ah cod ayaa ka mid ah. marka aan rabno inaan computerkeena cod gelino waxaa qasab ah inaan heesano microphone. microphonekaas wuxuu noqon karaa laba nooc, mid computerka ku samaysan iyo mid banaanka computerka ka yimaado. labadaba marka waxay ka mid yihiin waxyaabaha wax lagu geliyo ama codka lagu geliyo computerka. intaasna waxaa ku fahanay waxa la yidhaahdo qaybaha computerka ee loo yaqaano input unit. waxaa halkan sidoo kale ku qaadan doonaa qaybta loo yaqaano output unit. output unit waxaa leenahay waa qaybaha computerka wax looga soo saaro. waxyaabihii computerka la gelishay waxaa la rabaa in dib looga soo saaro. marka haddii muuqaal ama qoraal ay yihiin waxaa soo bandhigayo ama wax walba oo computer ku jiro waxyaabaha soo bandhiga waxaa ka mid ah shaashadda ayaa ka mid ah. shaashadda waxay soo bandhigtaa wax walba oo computerka ku jiro. sidoo kaleeto waxyaabaha qoraalka ah waxyaabaha soo bixiya ama soo bandhiga waxaa ka mid ah printerka. printerka wax uu soo saaraa ama dibadda u soo saaraa qoraal walba oo computerkaada ku jira haddii aad u baahatid inaad daabacato. sidoo kale waxyaabaha computerka laga soo saaro waxaa ka mid ah codadkii aan gelinay ee microfonka aan ku duubnay marka aan rabno inaan soo saarno waxyaabaha aan ku soo saari karna waxaa ka mid ah speakerka ama sameecadaha. sameecadahana waxay banaanka u soo saaraan codkii computerka aan gelinay anagoo isticmaalayno microphone. sidaas darteed intaas waxaa ku fahanay iyadana output unit oo ah qaybaha computerka wax looga soo saaro. qaybta xigta waxaa la yidhaahdaa system unit. waa qaybta ugu muhiimsan computerka taasoo ka shaqaysiisa dhammaan qaybaha kala duwan ee computerka. qaybta koowaad waxaa lagu yidhahdaa waa qaybta ugu weyn waxaana loo yaqaanaa motherboard. motherboard waa qaybta isku xirta dhammaan qaybaha kala duwan ee computerka uu ka kooban yahay. sidoo kaleeto waxaa jiro CPU waxaa loo yaqaano CPU. CPU waxaa laga soo gaabiyey Central Processing Unit. unitkan isaguna waa unitka dhexe ee computerku ka shaqaysiya ama qaybta dhexe ee computerka shaqada ugu badan qabata. sidoo kale waxaa jiro random access memory oo loo yaqaano ama loo soo gaabiyo RAM. ramka isaguna wuxuu ka mid yahay meelaha computerka daatadiisa ama xogtiisa lagu kaydiyo. marka computerka aad xog geliso marka ugu horeysa waa lagu kaydinayaa qaybta koobaad ee computerka ayuu ku tusaale ahaan marka computerka qoraal ku qortid qoraalkaas wuu keedsan yahay wuxuu ku keedsan yahay qaybta ugu horeysa computerka. haddii aad save garaysana gudaha loo sii gudbin doonaa, haddaadan save garayna barta u yaal ayaa laguga heen doonaa.
qaybta xigta waxaa la yidhaahdaa power supply. Power supply waa qaybta kombiyuutarka uu dabka ka qaato oo kombiyuutarku dab la-aan ma shaqayn karo. Power supply-ga marka laba qayb ayuu u qaybsamaa. Mid waa mid ku xiran desktopka, waa midda banaanka laga arki karo oo systemka ku xiran. Midna waa midda laptop ku xiran oo isaguna gudihiisa ayay ku dhegan tahay oo waad dareemi kartaa meesha kulaalka ama ka soo baxayo ama guuxa ka yeerayo wax loo yaqaano power supply. Marka waxaan rajeynayaa inaan soo fahnay qaybihii ugu muhiimsanaa ee kombiyuutarku uu ka koobnaa. Haddii casharku ila dheeraadayna waan ka cudur daaranayaa oo waxaan ku soo gabagabeynayaa guud ahaan casharkii intaas waxaa yahay waxaana loo yiri casharkii wuu dhammaaday. Marka guud ahaan casharkii koowaad ee barashada kombiyuutarka intaas ayaan ku soo koobayaa. Fadlan la soco oo daawo casharka labaad ee soo socdo insha Allah.